Djibouti dal yar oo istiraatiiji ah kuna yaala xeebta waqooyi bari ee Geeska Afrika. Waxaa dhanka bari kaga beegan marin-biyoodka Bab el-Mandeb, kaasoo kala saara Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. Sannadihii 1896 ilaa 1967, magaca dalkan waxa uu ahaa French Somaliland, kaasoo ka turjumaya qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee gumeystihii Faransiisku haystay. Sannadihii 1967 ilaa 1977, waxa uu qaatay dalkan magaca Djibouti kadib markii uu xorriyadiisa ka qaatay dalka Faransiiska 27 Juun sanadkii 1977. Caasimadda waddankan waa magaalada Djibouti. Magaalooyinka kale ee dalkanna waxaan ka xusi karnaa Tijura, Cali Sabiix, Qile iyo magaalada Carka. Inkasta oo Djibouti ay tahay dal yar, haddana waxay leedahay muhiimad istiraatiiji ah oo weyn marka laga eego juqraafi ahaan iyo siyaasadda gobolka. Caasimadda waddanka waa magaalo ay ku taallo dekad casri ah oo muhiim u ah maraakiibta ku socdaala Badweynta Hindiya iyo Badda Cas. Waxaa sidoo kale magaalada Djibouti ka bilaabma waddada tareenka ee isku xirta dalka Djibouti iyo caasimadda dalka Itoobiya. Dhulka dalka Djibouti waa mid cimilo ahaan adag, wuxuuna ka kooban yahay buuro dhaadheer oo aad u qallafsan iyo dhul kulul oo lamadegaan ah. Meelaha ugu sarreeya dhulkana waxaa ka mid ah buurta Musa oo dhererkeedu gaarayo ilaa 6,654 feet. Waxaa sidoo kale xusid mudan in dalkan ay dhacdo meesha ugu hooseysa guud ahaan dhulka qaaradda Afrika, taasoo ah harada Lakasal, waxayna heerka badda ka hooseysaa qiyaastii 155 mitir. Djibouti waxaa si weyn looga yaqaan caalamka inay tahay meel juqraafi ahaan hodan ah, waana meel ay ku urursan yihiin kumanaan nooc oo dhagaxaan iyo dhul dabiici ah kuwa oo ka dhashay foolkaanaha iyo dhulgariiraha ka dhaca waddanka. Cimilo ahaan dalka Djibouti waa mid kulul, wuxuuna leeyahay 2 xilli oo waaweyn. Xilliga qaboobaha oo ah bisha Oktoobar ilaa bisha Sebteembar wuxuuna la mid yahay cimilada badda Mediterranean-ka. Heerkulkiisana wuxuu u dhexeeyaa 20 digrii ilaa 30 digrii. Xilliga kulaylaha waa Maajo ilaa Sebteembar, heerkulka ayaana sare u kaca marka dabayl kulul oo la yiraahdo qamsiin ay ka soo dhacdo dhulka lamadegaanka ah ee gudaha ku yaala. Waxaana heerkulku gaaraa celcelis ahaan 30 digrii ilaa 45 digrii. Roobabka sanadlaha ah waa kuwo kooban, waxaana caadi ahaan la helaa 26 maalmood oo roob ah sanadkii oo dhan. Qowmiyadaha dalkan ku nool waxaa ugu waaweyn 2 qowmiyadood, waana Soomaali iyo Afar. Waxayna ku hadlaan afaf ka tirsan Kushitiga Bari, balse midkoodna ma fahmi karo midka kale si toos ah, taasoo macnaheedu yahay in luuqadahoodu xiriir leeyihiin balse aysan si toos ah isu fahmi karin. Qowmiyadda Afarta waxay ku hadlaan luuqad la xiriirta Saho, taasoo ka mid ah luuqadaha Kushitiga Bari ee ka tirsan qoyska luuqadaha Afro-Asiatic. Luuqadaha Afar iyo Saho waxay sameeyaan wax loo yaqaano dialectic continuum, taasoo micnaheedu yahay in luuqaduhu si isdaba joog ah isu beddelaan, laakiin aan si toos ah loo fahmi karin mar walba. Qowmiyadda Afarta waxay ku nool yihiin gobollada cidlada ah ee galbeedka iyo waqooyiga Gacanka Tijura. Qowmiyadda Afarta sidoo kale waxay degaan dalka deriska la ah Djibouti iyo Itoobiya, waxaana tiradooda iyo qaybintooda labada dal u samaysan tahay qaab u eg 3 xagal dheer oo badanaa loogu yeero Afar Triangle. Qowmiyadda Soomaalida oo ah tan ugu badan qowmiyad ahaan dalkan waxa ay ku hadlaan luuqadda Soomaaliga, waxayna si weyn ugu badan yihiin caasimadda Djibouti iyo qaybta koonfur bari ee dalkan. Aqoonsigooda bulshadana waxaa go'aamiya xubinimada qabiilka iyo qoyskooda. Diin ahaan boqolkiiba 90 dadka reer Djibouti waa Islaam Sunni ah, waxaana sidoo kale dalka ka jira diimo kale sida Ortodokska Bari iyo Kaatooliga Roomaanka. Dhaqaale ahaan dalka Djibouti waxaa ku yar kheyraadka dabiiciga ah, sidoo kale awoodda uu leeyahay beeraha iyo warshadaha waa mid xadidan. Wuxuuna dalkan alaaba la tacaalaa shaqo la'aan baahsan, deyn dibadda ah iyo miisaaniyad sanadle ah oo inta badan hoos u dhac keenta. Djibouti ma laha kheyraad dabiici ah oo badan, balse waxaa jira cusbo laga soo saaro dalka, taasoo qayb ka mid ah la dhoofiyo halka inta soo hartayna lagu iibiyo suuqyo aan rasmi ahayn. Gabagabadii, Djibouti waa dal yar laakiin saameyn weyn leh oo isku darsaday taariikh qani ah, xeebo hodan ah iyo bulsho isku dhafan oo dhaqankoodu yahay mid gaar ah, taasoo ka dhigaysa meel mudan in la barto, la booqdo, lana xasuusto.